أهلا وسهلا سو dhawaad walaal waan dhawahay magacaaga magacaygu waa quruxsan wala waxaad noo sheegtaan waxaad doonaysaa inaad guursatid nin dalka jooga mise nin qurba jooga meel nin dalka joogaan doonayaa sababtuna de walaal nin dalka jooga waxa weeyaan waa dhiigaygii waa walaaladay baan ku dhaaday nooc walaal kasta weeyaan uu ku dul qaadan karaa ka dibadda jooga dal lacag mooye wax kale ma haye sidaas ka dhawa waa saas iga dhawa waayaada waa sad shakir hey walaal adiga mudan soo dhawaad magacaaga xamsi waxaad noo sheegtaa ma waxaad guursan lahayd gabadh dalka joogta mise gabadh qurba jooga gabadh dalka joogta gabadh dalka joogtaad guursan lahayd sababtoo maxaa ka doonaya dibadda marka tu dibadii waxa ma doonaya tu dalka doonaysa ku dalkan doonaya aad baad maasanta shukr ahla wasahlan soo dhawaad waan ku dhawaad walaalo magacayga hadiya la yiraahdaa hadiya waxaad noo sheegtaa ma waxaad guursanaysaa nin dalka jooga mise nin qurba jooga nin dalka jooga sababtoo dalkan ragga jooga ay ka dhaqan wanaagsan kuwa dibadda jooga kana diin wanaagsan aad baad maasanta wadiga madawala ahla wasahlan soo dhawaad wala wando magacaaga Samni Maxay Ibrahim waxaad noo sheegtaa ma waxaad guursan lahayd gabadh dalka joogta mise gabadh qurba jooga labadaba ma guursadeen sax oo ka waxaad guursan lahayd islaam weyn oo lacag leeyahay oo marka halkee joogta muhiimadu waa meesha joogtay dibadaha markaad waxa doortay qurba joog midda ma garanaysaa de islaam weyn baad guursan lahayd wixii fahmaysaa oo markaa maxaad ku dooratay nooc ciyaalka yar xasaan isfahmino islaanta aanu inkastaan oday haddana laga dareemin وكاس واي أدم أصلا إيش بربش لا دولار واسيونيك صح سهل سودوا أنت ورا ما حاجة هذه حسين نبي دي واحد نوع شيء تام واحد قرص لنا إن قرب شوجا مثلا إن دلك شوجا إن دلك شوجا صوتها وكدي في عين وكا أخلاق في عين وكا أشح في عين أدم أصلا تورا شكرا هذا موضوع سهل سودوا وندوه والله ما حاجة حمزة أحمد عبد الله ولا لا حمزة واحد شيء تام واحد قرص لنا قبل دلك شوجته بس قبل قرب شوجا maxaa dalka igu wata de anigoo qurba joog arkaya maxaa dalka igu wata sabab marka sababtu kuwii dalku waa de aniga mid dhaanta raba saaxib mid dhaqaalahaan iyo meel kasta igu dhaanta ayaa ma rabaa aniga soo ma garata صح waa sida markaa ku dhoofisa mid i dhoofisa raba maxaa Afrika inaan ku sii waara marawe waa yaada ma sant sana soo dhawo on dhawaay walaalo magacaaga aswaan balida aswaan ma waxaad guursan lahayd nin qurba jooga mise nin dalka jooga mid qurba jooga guursan lahaa sababtana waxaan ka fikirayaa de mustaqbalka carruurteeda oo seed uga fikiraysaa markaa de nin dhaqaalaha isla guursanaya si carruurteeda nolol ugu noolaan fiican ku noolaa oo kan kale ma ilaahay siin karin de haye kaas waxba bartina aqoon weeyaan marka waxa la kaasoo faqiir waa faqiir faaraxida ku jooga Afrika waa faqiirin ma doonaysa markaa ha igu soo dhisin waa yaada ma sant fikran